السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkiin cabdilcasiis kusoo dhawaada channelkeena suldaanka mashaariicda maanta waxaan ii hayaa majmuucad mashaariic baan ii hayaa ilaa iyo gaarisa 3 mashruuc oo aan raas maal u baahnayn oo fudfudud mashruuc kasta wax yar baan ka taabanayaa laakiin hadhowdii kommentaadka waxaad kusoo qortaan mashruuckaad rabtaan aad nii faahfaahiyo waa fikra basiita 3 mashruuc baan iga soo qabtay insha Allah muuqaalo saas oo kale ah mashaariic yar yar oo fudud baan soo qaban doona mar walba hadda 3 mashruuc baan ku ekaanina mashruucena kawaad waxa weeye mashruuc تسجيل جامعات في الخارج يعني anagu Soomaaliya hadaan joogno dhalinyaradena waxay jecel yihiin badan markay secondary-ga dhameeyaan in ay jaamacadaha dibadda ka diyaariyaan okay dibadaha markay jecel yihiin ka diyaariyaan sawaanka baccalaureate ama magister oo kale caqabad bay la kulmaan oo ah ma oga ama qaabka ama see manhadaha loo helo iyo see jaamacadaha dibadda loo sajalo lidalik waxay u tagaan dad dhaca lacag badan ka qaata ama minxad balaasha intay helaan ee lacag ka siista qofka adiga halka marka maxaad ka faa'iidi kartaa hal shay baad ka faa'iidi kartaa oo ah in jaamacadaha adduunka waqtiga jaamacad kasta website bay leedahay in aad jaamacadda la xiriirtid oo aad tiraadid minxado ma leedihiin misamaya leeno boqolkiiba 90 jaamacadaha adduunka minxaday bixiyaan dadka maartay shuruudo macayana leh bay u bixiyaan minxaday siiyaan marka adoo minxad helaya qofkii u heli karaa aad buu ku farxi lahaa qofka iyo waxa jira dad raba inay lacagtooda wax ku bartaan China iyo meelaha Malaysia iyo meelaha Soomaalidu u badan yihiin حتى كندا مريكنكا جرمانكا طليانيغا way jiraan waan la xareystaa marka qofkii waad weydiinaysaa waxa u baahan tahay taban mashruucan adeeg ugu xiran tahay waayo waa kartidaada iftahankaaga farfarcoonimadaada saad u fahamsanteed ingiriisigan lagu wada hadlo xagga emailada way waxa jira ingiriisi af ingiriis oo gaar ah emailada lagu la hadlo dadka marka emailada waa luqad language gaar ah weeye darabtid ka baar google waad heli kartaa waxyaabo ku fududeynaya marka waxaad ka faa'iidi kartaa ardaydeena hadeer secondary-ga dhameynaya rabeen dibadaha wax ka bartaan jaamacadaha baad galaysaa shuruudaha rabaan waxyaabaha rabaan baad fiirinaysaa qofkii waa u fududeynaysaa hadhowd waxaad ka qaadanaysaa khidmad oo ah yani fududeynta aad u sameysay oo jaamacadda u sii taasna wax ku xirantay intaad ku heshiisaan annagu waxaan ku aragnay halkan carabaha masalan waxaan aragnay xafiisyo ilaa 20 sano 30 sano furnaa oo shaqadooda intaas ay tahay waliba waxa la yiri mowsimkay aad uga shaqeystaan waa bisha 6aad ilaa iyo bisha 9aad mowsimkaas aad u shaqeystaan waana mowsimkoodii weeye sanadkiina oo dhan way shaqeeyaan taas ka faa'iideyso si dhexgal insha Allah haddaad rabtiin inaad faahfaahin naga siiyo comment-ka ku qor insha Allah kaas waa mashruuca kawaad mashruuca labaad aan u wareegno mashruuca labaad waxa la waa kitaabada albuxuus arday jaamiciina farbadan baa jira waan shaqeysta aan waqti u hayn inay baxsi ama wuxuun qoraan ama laptop aan haysan ama laptopka uu haysta laakiin uusan garanayn suu isticmaalo ama waqtiga ciriiri ku ah marka wax sameynaysa kala aati ardaydaas aad u fududeynaysaa buxuustoodii waxooda u qoraysaa haday English tahay haday Carabi tahay asagana haduu ku keeno qaar baa jira inta maktabada galaan oo maartay baxsiga gacanta ku qora hadhowdii u baahda cid computerka ugu qorta word ahaan ugu qorta kaas waxaad ka faa'iiday kartaa waad u qoraysaa ala safxadii waxaad ugu la ittifaaqaysaa ama ugu la heshiinaysaa qiimo muayana ala safxadii markaad u qoraysaa dad badan baa ka shaqeysta waana shay aad u fiican weeye oo maaragtay aad u fiican weeye tayib dadka seeba u heli kartaa dadka waxaad ka heli kartaa maktabadaha badana dadka maktabadaha aadan buxuusta ka daabicanayaan waxa saaranaysaa ninka maktabada la heshiinaysa iclaan baad u saaraysaa cidii rabtayna baxsi loo dhameeyo loo qoro lambarkan ha nagala xiriirto lambarkan lagala xiriiraya waxa dhahaysa baxsigaaga muxuu ka kooban yahay muxuu yahay waa imisa safxadood markaas oo dhahaysa safxadda intaas aan kula heshiinaya insha Allah haddaad wada heshiisaan
يعني hadhowdii waxaad ka qaadanaysaa dee qiimihii safxadda kaana waa iska mashruuc basiit oo yar raas maal uma baahnaa raas maalkiisu waa xoogaaga iyo kartidaada kaas waa kan labaad kan saddexaad waxa weeye suuqgeynta electroniga annagu xagga suuqgeynta electroniga aad baan ugu liidanaa yani dadka kulliita baanu nahay caalam thalith baanu nahay annaga waan leenahay taswiiq electronic laakiin waa basiit bidaa'i haddii la fiiriyo waa kii la isticmaali jiray sagaashameeda adiga haddaad tihid qof social mediaha caanku ah oo dad fara badan ay maaragtay followers ku ah ama ku taabicaan waxaad ka faa'iidi kartaa hal shay oo ah in aad samaysid taswiiq electroniga waa maxay waa alaab ama qalab oo dukaan yaala ninka dukaanka alaabtiisa dadka shaarica maraya meelaha maraya ayuu tusaa laakiin way yar yihiin marka loo fiiriyo dadka ku jira social media ninka dukaankaad aadaysa waa la heshiinaysa waxaad tiraahdaa laptopkan ama alaabtan ama qalabkan waxaan kuu sameynayaa suuqgeyn markaan kuu sameeyo hadhowdii qof markuu kuu yimaado can tariiq tarafkayga aniga yani xaggayga markuu kusoo arko alaabtan oo soo dhigay social mediaha oo kuu yimaado alaabtaad gadisid nisbad baan ku lahaanaya سواء كان 10% أدينك هشية 5% على حسب أنت تكون هشيسان طيب يعني ممكن قف كلا إنه نينك على هشية أو ده الناس سوقين بانكو سمانية إيشراني طبعا قف أو سوقين نينك وسمانية ولا هشية نسا وحدا يسانو كود نمبر بان لهانية قف كربا إنه مارت كوي ماضو أو وحكا قطو ويدين نسا لمبر كوام حي لمبر كوكو شيغية لك يعني uma baahna xataa adiga inaad aadid ninkaad u diriso waxdaas qof baa ku imaanaya meesha rabayna ka gato laptopka macayanka HP-ga masalan intaasan kula heshiiyay intaydana ii dhig ninkana weydii koodka lambar kaleeno waa jiraan dad fara badan oo suuq geynta bilaabaya taasna uma baahna raasmaalka waa xoogaaga iyo kartidaada iyo dadka followerska ku ah xagga maartay xagga wadamada qarbeed oo kale aad bay u qiimo badan yihiin qofka followerska haysta qaar baa jira 5 milyan oo followers haysta qaar baa jira 30 milyan followers haysta qaar baa jira aad dad u fara badan followers haysta marka adiga markaad wax siisad tiraadid soo geli Instagram-ka ama Facebook-gaaga markuu soo dhigo 30 milyan oo qof baa arkaya meeshaad adiga maartay dukaanka ka dhigi lahayd oo arki lahaayeen masalan 1000 qof bishii gudaheed لذلك suuqgeynta electroniga aad bay dadka maarta hadeer u aadeen welibana xilligan aan ku jirno xilliga cudurka maarta aad u faafay adiga hadeer saddexda fikradood baad haysataa fikradda rabtina aad nii faahfaahiyo insha Allah commentiga ku soo qora haddaad weli like noo saarin videoga like noo saar say u shaaco oo dad badan u arkaan insha Allah oo ka faa'iideystaan aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh